فيديو بدنا تيك توك iyo waxyaabahan soo dhigay before and after iyo waxyaabahaas ay hayn magaranaysa anoo gayno leh oo yaani barutuna aad igu badan tahay after kino wax noqday anoo gaynihii aad u yaryareeyay amba u eegtayna meesha ka wada saaray oo aan lahayn gayno marka dadku su'aalo badan bay ka soo weydiiyeen dhinaca gaynaha horta gayno waa maxay Gynecomastia waxa weeyaan baruur yar oo adag oo ka soo baxda ragga qaar markay 15 qaangaadhkii yara dhaafaan saa u sii dhaafis qaangaadh ayuun bas ku arkaysaa tissue yar oo ka yara soocaysa raggii kale halkii ciyaalkii kale ay shaarka ka saari lahayn adigu tuurbad ku yeelisaa amba funaanad ba soo gashanaysaa amba dee adigu waxba ku diidaya inaad garanka iska saartid adoo ninaan naas leedahay alla naasuudeeyay alla waxyaabahaas ay dadku kugu caayaan caaydaas unba dee waxyaabahaas oo dhan aad uga baahanaysaa waana kadeed waa kalifaad maaha adigu gabadhnimo la timaaday oo dabeecadaha inta bedeshay gabadh iska dhigtay ay wax ka soo baxeen maaha boo si dabiici ah adigoo sidaadii caadiga ku bedda dadkii dhex galiya raggii kale si uu u dhex socdo wax walba hagaagsan sameynaya oo testosteronkaagii waxaaga oo dhan ay ku hagaagsan yihiin ayuunba waxna ka soo baxeen كير فكر نلاشت كنا ولا هسه مركز واحد يريد هو كراهية بري بجرتي أنا جو بري كانوا حد كذا بحسنا بين جاري بيسوق مري جاري نينكي كشري أي أنت سيدا قرط والله صوب حبي يقولي صاحب واحد متشسبه مسوي الناس أبا إيشو ملاها من ساعد يا صبوطه ويل بيجي وحول بود تشابي يعني بروتهن بربوري باحت هذا تقول هذا هو بربورني push up يقول هذا push up توزبي واحد كذا وزبي ستيل هذا نوي صوت هجنين عيل بيجي تنضد إنه ولا صوت دبتوني مكانسا لكن هذا إمك آدي بودامان أو سيدي هرب معها تبغون بريجي هري أركي وحيقول هذا با ده ماشي هاد كسرت با واحد هو أركي سيد كاجو حوين testosterone كاجي مركز كان جالس عاديا والله سود دايا أو testosterone بدن بلا سود دايا testosterone كي هدي حد كبحضه ده إيستروجين نوع كعيسى مرة testosterone إيستروجين ويستصعنا هدي testosterone كعضه إيستروجين نوع حوين هرمون كي دمرك هرمون كي دمرك وحلو خفيفيا testosterone هدي حقوق كعضه مركها برياد يريد أما مركز قنجارسي أي testosterone كاجي مركي كعدي أي إستروجين كاجي نكعي إستروجين مركو كعي أي تشيوجن أسامح ذي إن أسمى اسمه hormonal imbalance هرمونس كاجي بالانس ويا معنيه كأن هذا بس كريه اللي حلنيه أي اللي قرنا يقف البعض قرنا إن السيرجري كش إن القلتان أنت على جلو التشيوجي آيرس على لص صاروا وضحك كويكتد لكن دبعتنا إحنا غطي قلتان قوة سديت كونه دولار كاستوي ku xiran tahay dalka joogtid ma garanaysaa laakiin caadiyan average ku waa 8,000 ilaa 6,000 meelahaas ay noqonaysaa oo dollar qof uu ku bixin lahaa duhaya waan hubaa inuu qofkii insecurity daraadeed amba dhibaato uu ku hayso daraadeed qofku uu bixin lahaa duhaya laakiin 6,000 dollar amba 8,000 dollar dadku dhamood helayaan hadaba anigu soo jiriman gelin halkan kullu miyay baan ku sheegay iyadoon ahayn taas halka koowaad waxa weyn horta inaad baruur hadaad leedahay amba baruur xoogaa hadaad leedahay oo waxa keenaya inuu soo riixo gaynihi kuuskiis waaba kaabadhe baruurna soo riixayso de waxa uu ekaanaysaa inuu aad u badan tahay meeshii marka gayno haddii aad doonayso inay yaraato oo aad intay imika u leegtahay haddaad baruur leedahay ay ka yaraato baruurtii meesha ka jar 50% amba 80 horta meesha ayuu ka baxayaa hadaba gaynihii inta tissue-ga yar baa soo hadhay tissue-ga yar shax baan u dhigay yaa iskaxba samaystay on ugu talagalay inay gaynaha meesha ka saarto imka tusaale tashtaadu waa noocan ku siro halkan noo ka saaran yahay Soomaa oo gaynihiya ana hadaba sid ugu eekaysiin inuu meesha ka baxsan yahay waxa weeyaan inaad upper chest dhistid upper chest waxa weeyaan chesteenu saddex bay u qaybsantaa Soomaa waa upper chest middle chest iyo lower chest soo saddexda ma qaybsanto upperka ayad xoog u dhisisaa gayniga markuu inta yahay ad intan sarana soo dhistay de maxay meesha u eekaanaysaa de chest caadi soo round u ah yaa sida goobo u ah taasaan lagu talagalay inay chest caadiyan u eekaato Soomaa marka gaynaha adigoo leh still haddana chestii aad meesha ka soo build gareysay de meesha way ka saaraysaa amba u eekaysiintii inay naas u eegyihiin chest ayuu eekaanaysaa imika marka exercise sidee ku saamaxayaa inaad upper chest dhistid amba aad awood saartid hadda gym gelisid weeyaan ka gurigan oo ku sheegay ka warin gym hadda ku jirtid benchka yara kaca ma garanaysaa ay soo qaasa ma soo qaaday
kor baad u qaadaysaa angle yaro ilaa 60 ilaa 45 degree inta markaad ka dhigtid dee dumbbell ba soo qaadaysaa aad ka jeri karaysid 12 marka haddaad daafisid dee aad buu kuu fudud yahay haddii aad daafi kari weydo 12 10 iyo 8 amba 11 ay kaaga fiishayso dee waa weydkaagii amba miisaankaagii lagugu talagalay exercise kalena ku sheegay keybelada amba xadhiga labada xadhigee labada dhinac ku kala yaala ayaa soo qaadaysaa halka ugu hooseysa dhigaysaa saas iskugu keenaysaa taasna waxay ku saameysaa in upper chest aad dhistid labadaba upper chest ku sameeyeen form kana inaad hagaajisid waa waajib hadii kala garbaha ku go'aya waxa dareemaysaa in garbuhu ku jabayaan miisaan ku macquul ah 12 amba 10 aad ka jeri karaysid si yaro hagaagsan oo form sax ah ayaa waajiba hadii uu marna dhinaca guriga waxa sameynaysaa sigi soo qaadaysaa kor iyo waxyaabahaas ma jiro soo maaha amba dabada dad kicinaysaa saas ka dhigaysaa amba lugahaaga ayaad meel sare saaraysaa saas u noqotid يا واحد لو بهينا سا ugu kacdi waxaad u baahantahay inaad lugahaaga meel sare saartid saasa ku saamaxaysa inaad target garisid upper chest hadaba gaynaha laftirkiisa sidee ayuu yareynaa imika dad u baahatid coaching ka cuniyo cuntadaada ku sameynayo program hagaagsan oo ku fududo joogteyn karisid oo ku soo koobiyo waxaan oo dhan aan ka hadlayo dheeraad dad badan oo hore ku soo caawiyo ku gaadheen meel aad iyo aad u wanaagsan muddo kooban waxaad taabataa linkiga yaala description-ka amba comments-ka markii hore waxaan taataabnay waxyaabo uu eekaysan inuu yar yahay gaanihi laakiin gaanaha naftirkiisa ay inuu isku daynaa inuu wax ka yar taataabno taasna baaritaan inaba caadeen baan u galay taas hormonal imbalance ba ku haystay Soomaa waxaad hagaajinaysaa hormoniskaagi waxyaabihii hagaajinayay ayaad soo qaadanaysaa supplementyo ku saamaxayna hormonadaadu yar hagaagaan taas oo yar saamaxaysa in gaanihii tissue laftirkiisa inuu meesha u sii yaraado oo xoog u sii yaraado waxaana kamid ah supplementada ku saamaxaya in hormonadaadu yar hagaagaan zinc sababta waxa support karaya amba uu caawiyaa testosteronkaagi zinc haddaad qaadatid amba supplementka zinc haddaad qaadatid dee hormoonkaagii imbalance ba ku soo dhacaya estrogentii meel bad kaga tagaysaa testosteronkaagii bad kacaya taasoo ku saamaxaysa inay yaraato amba size-keedii hore ay ahayd ay ka yaraato gaynaha supplementka kale ee yareynaya waxa weeyaan isaguna testosteronkii tasiyir kicinaya oo vitamin D waxaad ku qaadan karaysaa kiniin ahaan kii hore zinc wuxuu ahaa kiniin amba cuntooyin kale wad baari karaysaa cuntooyinkaas wad badsan karaysaa zinc ku jirta ma garanaysaa taas waa caadi ma aha waajib inaad mar walba soo qaatid kiniinkii laftirkiisa vitamin D na caadi wad ka qaadan karaysaa amba kiniin ahaan wad qaadan karaysaa labadaba ku taala ma aha aad buu wada yaraanaysaa meesha ka wada baxaysa laakiin horta size ahaan aad bi ku caawinaysaa dimna wad u baahan tahay taas waa supplement caadi dim balada DIM dilodolymethane baa loo soo gaabiyay estrogentii iyaduna balance gareynaysaa oo halkii loogu talagalay ay estrogentii ku celinaysaa maaha macnaheedu estrogenta ku kacsan gaayna marka leeday maaha tii hore qaangaadhka aad ka soo baxday ayuunbay estrogentu yara kacsan laakiin meel hagaagsan way ku noqotay ma garanaysaa laakiin estrogentii bay sii yareynaysaa estrogentii haddii sii yaraatana difaadkii yaraa tissue-gii yaraa ayaa sii yaraanaya taa macnaheedu waxa weeyaan uma baahnid inaad meesha ka saatid estrogen waxaan ku leeyay yareynaysaa haddii meesha ka wada saatid estrogentii timihii baa kaa daadanaya dareemadii baa kaa wada khakhalaya gebigaagu wax kala soo baxaysa hormoonkani aad iyo aad buu muhiim u yahay oo waan ogay inay tahay hormoonkii dumarka ma garanaysaa laakiin maaha inaad nacbaatid heer aad meesha ka wada saaraysid ma garanaysaa xadkaas maaha inuu kugu bataanaa dee wuxuu kaa dhigaya gabadh markaa inaad hormoonka yara hagaajisid oo meel yaro balance loogu talagalay halku ragga taagay inuu taagnaado waa waajib faa'iidooyin iyo khasaaro buu leeyahay markaa in meel wanaagsan taagnaado waa waajib tu kale oo kugu caawinaysa khatar way leedahay maskaxda ku gasho khatar way leedahay laakiin haddii aad helaysid tamoxifen caadi waxa loogu talagalay in dumarkan breast cancer-ka iyo waxyaabahaasi uu haysto inay qaataan oo u saamaxaysa in tissue-gii kansarku ku dhacay in meesha ka gooyo dumarkan breast cancer-ku ku dhaco ka yareeyo ayaa loogu talagalay Soomaa aduu waxaad u isticmaali kartaa tissue-gun baa loogu talagalay inuu meesha ka gooyo maaha kansarka iyo waxyaabahaas loo soo qaadanaya waxaa loogu talagalay tissue-gii just ku jiray ee kansarku qabaysaanu jirka inta kale u gaadhin inuu meesha ka gooyo taa macnaheedu waxa weeyaan dadkuna oo u isticmaalaanba gaynaha hadaad leedahay the tissue-gaas aad iyo aad buu kaaga caawinaya isaguna meeshuu ka yara goynaya badan uma shaqeeya ma garanaysaa laakiin dad badan horta wax uu tara oo size-ka aad iyo aad buu ugu yareeyaa relaxafin amba tamoxifen kolba labadaa kaad heshid
waad qaadan karaysaa laakiin ogow taasi inay khatarteeda leedahay oo khataro badan oo halka liverka way leedahay marka haddaad khatarta qaadanaysid oo u beeraysid khatarta anigu kuma lihi qaado amba qaadan midna kuma lihi anigu ku sheegaya runtu sidii tahay buu ku sheegaya marka haddaad qaadan sidii hadii aanad qaadan mar kasta aday ku taala marka beena badan oo kale waxyaabaha ka soo baalanaysa anaga ku soo tabcay bro anaga ku soo daalay anaga ku soo waashay waxyaabaha oo ku soo koobay isku dayay inaan video yaro minute aan kugu soo koobo waxaas oo dhan intaas oo kaliya ta ugu baahan tahay hadii noqoto dhinaca gaynaha doonaysa caawinayo waxyaabaha inaan kaala sii hadlayo waxyaabaha coaching dhinaca gaynaha iyo waxyaabaha aan kaaga qabto waxaad iga helaysaa linkiga yaala comments-ka amba description-ka videoga ka hooseeya marka aad iyo aad baad mahadsantiin daawata videoga wayna videoga dambe insha Allah